gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabada ay dhalinyarada gobolka Togdheer qaadaan lacageed ugu ururinayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliland. Munaasabadan qaadaan ururinta ahayd oo ka soo qayb galeen dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa qaadaan lacag ah loogu ururiyay dadka ay abaartu saameynta xooggan ku yeelatay. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa tilmaamay in gobolku hormuud ahaa dhinaca gurmadka abaaraha ee gobolada dalka oo dhan isagoo dhalinyarada gobolkana ku bogaadiyay gurmadkooda. gobolkeenu wax aan adduunka hore loogu arag ayuu abaaraha galbeedka ka qabtay. waxaanu halkan ka raray 34 lowr oo cawsa $7,400 ayay noqotay lacagtaas. culimaadudiinkeena barakaysan jooga gobolka masaajidada lacag ka ururiya $15,000 bay ururiyeen. waxay u qaybiyeen 3 gobol oo ay 120 booliyood biya u siiyeen xisbiga kulmiye ka tirsan baayimi oo aflaa ka shaqeeya xisbiga ee degmada $1,200 bay keen oo dollar oo ay ku caawinayeen dadka haraadan. idinkana waxaan ka codsanayaa in loo shaqeeyo dhalinyarada isxilqaantay. guddigii soo qaban qaabisay munaasabadan loogu gurmanayay abaaraha ayaa iyaguna dhalinyarada ku booriyay inay u tartamaan khayrka iyo sadaqada. maaha habeen magacaalis, maaha habeen caadifadeed, maaha habeen xamaasadeed, waa habeen dareen qeyro iyo dadnimo aynu caawa iskugu nimid. saabiqu ila alkhayraat waxaa loo tartamayaa waa khayrkii caawa. dhinaca kale dalada Sayna ayaa barnaamij ay u bixisay higsiga horumarka ku soo bandhigtay magaalada Burco. barnaamijkan ayaa muhiimadiisa uu ka waramay Mustafa Ismaan magaalo oo kamid ah mas'uuliyiinta dalada Sayna iyo Sahra Ayaan oo soo diyaarisay daraasad ku saabsan barnaamijkan. dhalinyarada dalada Sayna ee wacyigelinta iyo isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland barnaamijkan waxay soo qaban qaabisay dhalinyarta lagu dhiirigeliyo horumarka, in lagu dhiirigeliyo in shaqooyinka ay qabanayaan ay ku saleeyaan inay kaga qayb qaataan dhinaca horumarka. ku saabsan yahay higsiga horumarka, sidii horumar loo gaari lahaa. marka fikir aniga igu dhashay ee aan jeclaystay aan dhalinyarada kalena aan la wadaago. horumarka si sabab u dhaqaanaa waxa weeye in meel laga dhaqaaqo oo hore loo socdo ama la bedelo nolosha markaa lagu noolyahay oo nolol ka qurux badan lagu noolaado. aqoon-yahan Axmed Deer ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda barnaamijkan iyo waxyaabaha horumarka sababa gaadhistiisa. asaas oo kundhigu qof kasta oo bini'aadmi ah 4 qaybood buu ka kooban yahay: jir iyo caqli iyo ruux iyo caatifa. afartaasuu ka kooban qof. inta dhisanayn keliya waa qaybta caatifada. markaynu afartaa waaxood dhisno ayay noqonaysaa inaan horumarka maanta cilmi baadhiseeda aynoo soo dhigayso ayaan aynu inaguna aynu gaarno. dhalinyaradii ka qayb gashay barnaamijkan ayaa iyaguna ka qayb qaatay dood lagu lafagurayay higsiga horumarka. waxaanu barnaamijkani ka qayb yahay barnaamijyo toddobaadle ah oo dalada Sayna ku qabato gobolka Togdheer. Siciid Salabaan Nuur, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.